ayaa waraysi uu siiyey BBC-da ku sheegay in labada xisbi go'aanka ay qaateen waxa uu yiri ay yiraahdeen labada xisbi haddii ay go'aan ka qaataan inay iyagu doorashada galaan oo ay ka tashadaan masiirka dadka reer Soomaaliland in la kala tashan doono waa sida uu hadal ku dhigay Ciro oo maanta booqday xarunta BBC-da ee Nairobi ayaa ku celiyay in aan la kala reebin labada doorasho ee golaha wakiilada iyo tan deegaanka ee Soomaaliland arrintan ayaa khilaaf ka dhex abuurtay xisbiyada Soomaaliland iyadoo xisbiyada UCID iyo Kulmiye ay isku mowqif qaateen halka xisbiga wadanina uu ka soo horjeestay Cabdiraxmaan Ciro waxa uu warramay wariyaha BBC-da Faarax Lamaane hore xisbiga wadani wuxuu shacbiga reer Soomaaliland ugu cadeeyay inuu diyaar u yahay doorasho qabsoonta waqtigeedii doorasho qabsoonta maanta doorasho aan dhaafin 2019 waxaa kaloo shacbiga reer Soomaaliland u cadeeyay inuu xisbigu doonayo commission dhexdhexaad ah oo tiradiisana loo siman yahay halkan intii aan joogay waxaan la kulmay beesha caalamka ama deeq-bixiyaasha Soomaaliland ka caawiya arrimaha doorashada iyagana waxaan u cadeeyay deeq-bixiyaasha oo ilaa 9 safaaradood iyo dalka IGAD in xisbigu diyaar u yahay doorasho waqtigeedii ku qabsoonta maanta qabsoonta 2019 qabsoonta laakiin uu rabo siirwalayaal dhexdhexaad ah iyo tirada siirwalayaasha oo loo siman yahay waayahay inta aan la gaarin laakiin dadka siirwalayaasha adiga u taqaanid oo aan filayo inay yihiin dadkii aad doonayseen doorashada inay dusha ka ilaaliyaan soo kama haboonayn mar hore inaad arrintan ka sii digtaan oo iminka aysan noqonin arrin la isku qabqabsado guddiga hal la kala diro iyo mayayan la kala dirinaya xubnaha qaar hal la bedelo siirwalayaasha waxaan ula jeedaa guddiga doorashooyinka qaranka waqti horena waanu arrintan soo bandhignay oo bishii 3aad ee sanadkii hore ayaanu anagoo raacayna sharciga Soomaaliland oo sheegaya haddii ay cabasho jirto in loo gudbiyo madaxweynaha annagoo dariiqa marayna dariiqa sharciga waxaan u gudbinay madaxweynaha cabashooyinka iyagii iyo sababihii aan doonaynay in commissionka lagu bedelo waxaan noo qoray waraaqa 14 boga hase yeeshee ilaa hadda maanta wax garawshiye ma helin maadaama talada dad kale ay idin kala dhaxayso waxyaabaha la soo bandhigay waxa kamid ah guddiga inaan la kala dirin waxna lagu daro waxna laga bedelo xisbiga UCID ee isla mucaaradka ahaa sidaas ayuu ku taliyay kulmiyana sidaas ay wada qaateen maxaa u diideen horta wax la soo bandhigay ma jirto in waxna laga tago waxna lagu daro meesha lama soo bandhigin ma jirto anagu waxaan soo jeedinay laba arrimood ah in commissionka la bedelo iyo in tiradiisa wax laga qabto oo tiro loo sameeyo xisaabta la sameeyo hase yeeshee xisbiga Kulmiye labadiiba wuu diiday commissionka in la bedelo waa diiday tiradiisa in wax laga bedelana waa diiday sidaasana ku raacay xisbiga UCID sidaas ka warqabtana waxay ku dhawaaqeen dhawaan intii aan soo maqnaa oo ay haydee inay doorasho laba xisbiya ay qabanayaan laakiin shardiga wuxuu ahaa haddii aad diidaan oo aad ku adkaysataan mowqifkiina ah ilaa iyo guddigan doorashada la kala diro in aynan ka qayb galaynin sida hore ugu dhawaaqdeen in marka labadooda kaliya ay doorashada ka qayb gali doonaan horta dee Soomaaliland tala wadaag baa lagu waday waana waxaan u arkaa ayaan darreynay tahay inay laba xisbi yiraahdaan annaga doorasho qabsanayna arrintaasi waxay dhaawac weyn ku keeni doontaa midnimada iyo wadajirka shacbiga waxay dhaawac weyn ku keeni doontaa xasiloonida iyo nabadgelyada dalka waxay taasi tusinaysaa in Soomaaliland u socoto xaggii kaliya laba xisbi hadday go'aansadaan inay ka tashadaan 50% dadka waxay iman doontaa markaa in la kala tashado xisbiga wadanina noqon maayo daawade keligii in laba xisbi ay dalka doorasho ka qabsadaan laakiin gudoomiye adinka xal aan ahayn guddigan hal la kala diro ma ahay maxaa kala haysan faaraxo markii ugu horeeyay xisbi dalbado in commissionka la kala diro ma aha waxaad ka helaysaa imika haddaad Google garayso waraaq qoray madaxweyne Biixi markii uu gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Kulmiye 2 August 2009 oo ay kalsoonidii kaga noqdeen commissionka xilliga jiray madaxweyne Riyaale uu aqbalay si doorasho wadanka uga dhacdo 2010 marka markii ugu horeysay xisbi ka dacwoodo commissionka maaha arrin ugu ma arintani marka dacwad hadii ay noqoto dacwadda meel ayaa lala aadayo waa la yaqaanaa laakiin hal la kala diro taladina dad kale ay idin kala dhaxayso xogaa soo ma moodid inaad xujo soo dhigteen meesha ma sharciga iyagu waana la eegi karaa waana la akhriyi karaa sharciga doorashadu wuxuu qorayaa haddii commissionka dacwad laga qabo in madaxweynaha loo diro madaxweynuhuna uu guddi u magacaabo guddigaasi eedii aan soo jeedinay inay ma aqbasho ama diido taana lama samaynin waayahay iminka maxaa xal u aragtaan anigu waxaan u aragnaa in sidii horeba 2009 ku dhacday in commissionka la bedelo doorashadana waqtigeedii la qabto
labada doorashana aan la kala reebinta golaha wakiilada iyo ta deegaanka oo sida muuqata xukuumaddu hadda qorshaynayso inay deegaanka ka reebto golaha wakiilada. kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cimri.